Salaamantiin dhammaantiin waa idin salaam meel kasta joogtaan soo dhawaad. Excel maanta waxaan fiirinaynaa inaan ku sameyno waxa loo yaqaano balance sheet statement baan Excel ku sameynaa. Muhiimadda aan leenahay waxa weeye in Excel lagu sameyn karo. Balance sheet statement haddii aan qeexo, balance sheet statement waxay ka hadashaa qiimaha kambaniga uu yahay iyadoo u kala qaybinaysa 3 qaybood. Assetka kambaniga yaala, liability ahaan waxa kambaniga loogu leeyahay, equity ahaan dadka kambaniga iska leh waxa ay assetka ay ku leeyihiin. Saddexdaas qaybsa waxaana hagta equationka la yiraahdo A equals L plus E, which is assets equal liabilities plus owners equity. Idaas waa owners equity, equity-ga oo dadka kambaniga leh ay leeyihiin. Marka kambaniga nooc kasta yahay, haddii uu yahay Walmart, hadduu yahay Starbucks iyo hadduu yahay Gel businesskan aan maanta tusaalaha ku qaadanayno, waxaa laf dhabar u ah equationkaas hagta. Mar walba waa inay balance ahaadaan, aysan kala habaabin. Marka aan bilaawno Gel businesski, $10,000 waxaan kasoo saaray jeebkayga, personal jeegaygaan kasoo saaray. Waxaan ku furay businesski accountigiisaan geeyey. Marka businesski wuxuu haystaa asset cash ah oo 10,000. 10,000 kan marka waxay kor u qaadaysaa anaa kambaniga iska leh. Maxay kor u qaaday? Liability ma qaadayso. Waxay kor u qaadaysaa equity-gayga kor u qaadaysaa. Equity-gayga kambanigan aan ku leeyahayna waa 10,000. Okay. Marka balance sheet statement-gii waa no balance 10,000, no liability, equity of 10,000. Markana 10,000 equals 10,000. waa baxay Gel business waay waxaan sameynayo. Baadiyaan tagay, geelaan soo gatay. Waxaan soo gatay 5 halaad, hashiiba ay tahay $1,000. Marka geel ma qorayna, waxaan qoraynaa lacagta uu geelu noogu fadhiyo, which is 5,000. waa 5 halaad oo midiiba $1,000 noogu fadhiso. Marka assetkii 15 uu noqdo, laakiin halkan weli wax ma kicin. Waayo waa inaan ogaana 5,000 kan xaggee ka timid. haddii aniga iga timid halkaana la gelinaya oo aan another 5,000 aan jeebkayga ka keen, meeshaas markaasna equal ay noqonayaan. haddii ay dayn ku timidna halkaana la gelinaya oo markaas haddana still balance sheetkii uu noqonayo equal uu noqonayo 15,000, 5,000 oo liability ah, 10,000 oo equity ah. labadaba ma dhicin. Marka waxaa dhacday inaan isticmaalnay assetkii ama cashkii businesskii inaan isticmaalno. Asset inventory ah geel ah aan waxaan ku bedelanay asset cash ah. xaaladda marka halkaas waxaa ka dhacaysa asset lagu bedesay, assedaa yaraaday, assedaa soo kordhay. Marka 10,000 kan 5,000 laga bixiyey, waxaa ku haray 5,000. equationkeeni fiira marka waa balance. Storage waxaan u leeyahay in terminology-ga la fahmo oo ah inventory xaggee la geliyaa, storage la geliyaa. laakiin storage annaga waxaanu ah fensiga ama kaamkii xeradii geela lagu haynayo markii magaalada la keeno. xeraan gatay oo aan geela ku xaraysto. waxaan kala baxay 8,000. 8,000 jeebkayga kama imaan, kambanigana kama imaan. lacagtiisa waxay ka timid bangiyaan kasoo deensaday. marka liability waa liability aa kacay. marka bangigan aan 8,000 aan ka keensaday aan ka soo qaatay, kambaniga wuxuu ku leeyahay claim oo ah 8,000. taraag oo aan transportation ahaan jeebkayga taraag uma gadan, xarago uma gadan, personal use uma gadan. taraagan waxaa u gatay businesska in lagu shaqeeyo oo geela markii baadiyaha laga soo gado in lagu soo qaado. taraagaasna waxaan ka bixiyey 15,000. waxaana ka soo deensaday ninaan saaxiiba nahay aan ka soo deensaday, asagana waa liability. saaxiibkeyna businesskayga claim wuxuu ku leeyahay ah 15,000 oo hadhowti markaan siiyo hadhowti zero noqonaysa markaa xoolihiisa aan celiyo. marka businesskii waa xisaabanya. hadda businesskii aan ka bilaabay 10,000 ka haddaan gado maanta oo qof uu igala wareegayo oo ninka accountantiga ah uu balance sheet statementigan uu verify garayo yiraahdo waa sax, 33,000 laga qaada. kambanigii aan 10 ka bilaabay
maanta wuxuu marayaa wordkiisa ama qiimihiisa 33,000. xaaladdu markay halkaa marayso customer helay geeliyaan gaday geelii waxaan ka bixiyey 5,500. 5,000ka waa assetkii oo kaashkii aniga iga galay, wax faa'iidaa waa 500. marka 5kan inventorygay ka baxaysaa, waa la caddeeyey kaasha ku noqonaya. marka halkaa waxay noqonaysaa 10,000 intana 0. 500 loo xisaaba marka 500 waa revenue na soo gala sooma. revenue muxuu kordhiyaa u kor u qaadaa? equity kor u qaadaa. marka 500 marka equity kale equity-ga markuu kor u qaadana muxuu kala kor u qaadayaa? geel ma ahayn soo ma. 500 wuxuu ahaa cashkiina kor u qaadaa. 500 cash asoo kor. marka fiiri waa balance amaba balance sheet statementiga fiiri waa 33,500 loo kala jijibiyo 23,000 liability ah 10,500 oo equity ah. equity-gii 10,000 ahaa 500 ku darsantay. marka maanta kambanigaas equity waxaan ku leeyahay 10,500 laakiin qiimaha kambaniga waa 33,500 waayo waxaa ku jira 10,500 oo cash ah. wax inventory waa 0 inventory. storage 15 oo maaragtay 1,000 oo truck ah. storage oo 8,000 wordkiisa u yahay. marka waa 33,500 oo kambaniga qiimihiisu u maraya. 200 aan la baxay oo aan ilaa waa shaqeeyey xoolana waa gaday. marka negative aan ka dhigaynaa 200 aan la baxay. 200 aan la baxay waa cash oo la baxay. tanna cashkan hoos u dhacay ilaa kambaniga kala baxay. kambanigiina 10,300 uu cashkii hoos ugu dhacay waayo $200 aan la baxay. laakiin muhiimadda maxaa waay? assets equal liability plus owners equity labadana waa equal. xisaabta see u dhacayso $100 oo asagana ah shidaalkii iyo geeli maaragtay cawskiisii wixiisi ah asagana waana galay oo expense ah. expensigana muxuu hoos u dhigay? equity-gii hoos u dhigay. $100 asagana muxuu ahaa cash u ahaa 300 kana waxay isku bedelaysaa 200. fiiriya marka 33,200 balance sheet statementiga fiiri equationkaas ayadoo la raacay. equation kama nahabaabin 33,200 ma fahant. akaarta journalkay ku xiran maanta waxaa barateen in excel lagu samayn karo balance sheet statement ayadoo la adeegsanaya equationka caanka ah oo loo yaqaano assets equal liability plus owners equity. waxaa inoo balana cajalka dambe halkaan soo geliyo. sidaas iyo nabadgelyo.